bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii warbixinadii ugu dambeeyey ee Soomaaliya uu idin haya bahda TV qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya buuq iyo sawaxan lagu fashiliyay kulankii maanta ee baarlamaanka uu lahaa iyo isku daygii la doonayay in waqti loogu daro dawladda oo la fashiliyay madaxda maamul goboleedyada shanta ah oo kulan gaar ah uga furmay xandaabka xalane iyadoo la qorsheenayo in kulanka guud si isku mid ah ay madaxdaasi uga qayb galaan qodobada sidoo kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda Britain oo baaq degdeg ah ka soo saartay xaaladda Soomaaliya iyadoo hogaamiyaasha Soomaalida ugu baaqday in si degdeg ah ay go'aan kaga soo saaraan doorashooyinka dalka ciidamo dharcad ah oo la geeyay xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa sababtu maxay tahay waan idin hayaa dowladda Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay go'aanka dhawaan Kenya ka soo baxay oo ay ku xireyso xariyaha qaxootiga Dadaab qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idin qarinayo ayaan idin hayaa saaxiibayaal ee ku soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee bahda TV fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay janaalkan si ay markasta kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee bahda TV rukumo oo subscribe saar siina faafi oo la wadaag dhammaan asxaabtaada isku soo noqod wanaagsan ayaan saaxiibayaal idin leeyahay haddii aan ku bilaabo waxaa lagu kala dareeray kulankii golaha shacabka ay maanta ku ballaansanaayeen xaruntooda Villa Hargeysa kadib markii lagu kala qaybsamay in kulankaasi uu furmo ajandaha kulanka oo xalay lagu daabacay baraha bulshada ee golaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena xildhibaanada fariin qoraaleed markaasi loogu diray ayaa lagu sheegay in looga hadlayo arrimo ku saabsan COVID-19 balse waxaa yimid tuhun laga qabo in uu jiro muddo kororsi loo sameynayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo golaha shacabka baarlamaanka ka hor inta uusan furmin fadhiga buuq ayaa hareeyay xarunta baarlamaanka waxaana jiray buuq badan sida laga arkay muuqaallo markaasi lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan Facebooka dadka markaasi isticmaala oo inta badan ay aad u hadal hayeen sidoo kalena qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa diiday in ay saxiixaan buugga lagu xaadirinayo xildhibaanada qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa lagu eedeeyay in ay sameeyeen qalalaase isla markaana hor istaag ay ku sameeyeen in uu kala fadhiga furmo iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka ee waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu sheegay in loo soo gudbiyo liiska xildhibaanada kiciyay buuqa si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan sida uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanka dhanka kale waxaa maanta xerada xalane ka furmay shir gaar ah oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya shanta madaxweyne dowlad goboleed ee dalka sida Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawe wuxuuna kulankan ka bilowday hotel ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde wararka qaar ayaa sheegaya in kulankaasi diiradda lagu saarayo ismaruwaaga ka taagan furitaanka shirka wada tashiga ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaas oo ay si weyn markaasi uga biyadiideen hogaamiyaasha labada maamul ee kala ah Jubbaland iyo Puntland sidoo kale wararka qaar ayaa intaasi sii raacinaya in shirkan gaarka ah ee madaxda maamul goboleedyada ay ku qaadanayaan garoonka diyaaradaha looga hadlayo xal u helidda khilaafka weli ka taagan doorashooyinka shirkan ayaa daba socdo kulamo gaar ah oo ay maalmihii ugu dambeeyay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada si isfaham waaga dhankooda ka jira xal looga gaaro si kastaba dhawaan ayay ahayd markii uu baaqday shir u dhaxeeya beesha caalamka iyo maamul goboleedyada kadib cadaadis ka yimid dhinaca dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aan dib ugu laabto kulankii baarlamaanka ee maanta oo fashil ku soo ilaaday sida ay sheegayaan wararka laga helayo xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee Villa Hargeysa waxaa halkaasi lagu arkay ciidamo dharcad ah oo la soo dhoobay dhismaha xaruntaasi
oo maanta ay ku yeesheen kulan markaasi fashil kusoo ilaaday xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigooda uu dhammaaday. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda xarunta golaha shacabka ayaa xusay in ciidan uu ku tilmaamay maleeshiyaad la soo dhoobay xarunta Villa Hargeysa isla markaana wata bistoolado sida uu hadalka u dhigay. xildhibaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ciidamo dharcada loo adeegsado mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la doonayo in lagu qalqalgeliyo si loogu fuliyo ajando aan waafaqsaneen shuruucda iyo dastuurka dalka sida uu hadalka u dhigay. waxaa nasiib darro ah in xarunta baarlamaanka la soo dhoobo maleeshiyaad bistoolado ku hubeysan oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo xildhibaanada lana doonayo in lagu fuliyo ajando guracan oo baalmarsan shuruucda iyo dastuurka u yaala dalka ayuu yiri xildhibaan Mahad Maxamed Salaad. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay cambaareenayaan tallaabadaasi isaga oo hoosta ka xariiqay in dalka aan lagu maamuli karin qoray caaradiisa. si kastaba kulanka maanta ee baarlamaanka oo fashilka kusoo ilaaday ayaa waxaa laga muujinayaa tuhun ah in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah oo dalku uu ku jiro marxalad aad u adag oo kala guur ah. weli waxaan ku guda jirnaa daawadayaal wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. markana wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dube oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa jawaab ka bixiyay go'aanka ay Kenya ku xireyso xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Dube ayaa shaaciyay in aysan Kenya xiri karin labadaasi xero ayna qasab ku soo celin karin qaxootiga Soomaaliyeed oo uu tilmaamay in ay ku joogaan sharci caalami ah. qaxootiga waxa uu ku fadhiyaa xeerka caalamiga ah ee qaxootiga ee loo yaqaano Geneva. marka sidaas darteed Kenya xaq uma lahan in ay si qasab ah ku soo celiso qaxootiga Soomaaliyeed ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya. sidoo kale waxa uu tilmaamay in Kenya ay siyaasadeynayso arrimaha bini'aadanimada isla markaana ay wado argoosi sida uu hadalka u dhigay. arrimaha siyaasadda waxa ay ka dhaxeeyaan labada dal. kiis baa maxkamadda yaalla oo weli go'aan laga gaarin. arrimihii jabhadaha baan hadda xalkoodii helnay. marka haddii lagaaga adkaaday siyaasadda ma ahan inaad ka aargoosato dadka qaxootiga ah ayuu sii raaciyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya. ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda Kenya ay dan badan ku qabto qaxootiga degan dalkeeda isla markaana ay ku haysato dhaqaale xoog leh. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Kenya ay shaacisay in 2 toddobaad kadib ay albaabada isku dhufan doonto xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya. ugu dambeynna dowladda Britain ayaa baaq degdeg ah waxa ay markaasi ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee dalka. dowladda Britain ayaa ugu baaqday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada in sida ugu dhaqsiyaha badan ay markaasi u xaliyaan khilaafka hariye doorashooyinka la filayo in ay ka qabsoomaan dalka. bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Britain ayaa lagu sheegay in madaxda dalka looga baahan yahay dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. wasiirka ayaa ka dalbaday madaxda ugu sarreysa dalka in ay xal ka gaaraan khilaafka ku gadaaman doorashooyinka si dalka uu u aado doorashooyin. mas-uulkan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in dowladda Britain aysan aqbali doonin doorasho aan loo dhammayn iyo muddo kordhin loo sameeyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qabtaan doorasho isla markaana wada hadal lagu dhameeyo waxyaabihii diidanaa in doorasho markaas la gaaro. dowladda Britain ayaa ka mid ah dalalka taageerada la garab taagan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana xusid mudan in saraakiisha ciidamada Britain ay tababaro siiyaan ciidamada xoogga dalka si looga adkaado kooxaha ururka Al-Shabaab.
guud ahaanna waa naga intaa daawadayaal wararkii warbixinadii ugu dambeeyay ee bahda TV aad kala socoteen